اقرأ اقرأ بربك الأكرم سمعها اقرأ اقرأ وهو الرئيس اقرأ محين هذا أنا قرر ما أقرأ كرتا marka conditionaad jira islaamnimada kolay ku tahay conditionaad jira Soomaalinimada bariyaha conditionaad jira qorintii iyo akhriskii way isku xiran yihiin taqadumka qorinta iyo wax akhriska gidgood way isku xiran yihiin in ruuxii uu yahay mujtamac ka tirsan yahay qoridii iyo wax akhriskii iyo galay xasuuskii wixii oo dhan way isku wada xiran yihiin dhibaatada hadda haysata waxyaalaha ay ka mid tahay waxaa weeye af Soomaaliga qoran waxaan xasuusnahay aan xogaa intaasoo dhan serious banaan hadda aan idin sheeko maxay ahay idinka qosol serious اللهم نحرسين الانجينير مدحي ليش أبغى الانجينير أو راشن ويقصقاتي انجينير مدحي هسه مال مقالة لينينغراد يا موسكو كذا يا هاي ما كان مريم أيوة قبل شمال لينا سكر كيدي ريوري لينا قبل فرادير شمال لينا وميل مريس أيوة markuu garbasaartii uu jeclaaday iska daayay sayidina jeclay inuu jeclaaday garbasaartii iyo dhulkii ku socday wixii oo uu jeclaa wadawga maalintii dambe meeshii wuxuu bartay meesha ay soo gaartay maalin waliba meesha ay soo gaartay uu tegi jiray waraaj maalintii dambe geesini wuxuu ku yiri abaya rahal markaas waxay wararada soo afbaa isagii muxuu qaatay orada soo afbaa edeb yeelo ma qaado mogtahay kelmada orada soo afbaro waa edeb orada edeb soo wuxuu qaatay soo afbaro afka maadaama iyadii ay Somalilandees ahayd wuxuu yiri afkii iyo ay ku helaysay ya oo kala keenay wuxuu tagay hostelada meesha ardada ay galaan ninkii madaxda u ahaa naagtii madaxda u ahaa wuxuu ku yiri aniga waxaan rabaa in la iga raro meeshu deganaa wuxuu la deganaa laba maaragtay mid barabaan iyo mid kaloo maaragtay rex maya wuxuu tagay waxaan rabaa aniga la dugo hebel laba Somaliland noolka geesa meelahaakii ayuu yiri inaan la degan labadii buu la degan laba sano dhan ayuu afka baranay isagoo waarta ku ahay ayuu gabadhii u tegay markaasuu sidii iyadii dadkii loo hadlayay iyo gacmihii wixii u sheegay markaasay tiri waaraataan ku yiri soo afbaray soo afbaro ee ordan markaasuu yiri yaqay waa soo xogaa buu joogay digriigii buu dhamaystay xamar markii Soomaalida ay soo noqoto markii aniga waxaan ka mid ahay moogtahay generationka ruuxa markuu soo noqdo asxaabtiisu raadsan jiray hooyadii buu u tegay oo degan guri coshoosha ku jirta oo warniiglay degan saxna uu xiran yahay buu soo salaamay boorsidiisii buu dhigtay magaalada tegay waxaa u yimid dadkii qaraabadii asxaabtii baa waxay yimaadeen duqdii baa loo tegay waxaa la yidhi hay cabdiqaadir waa soo noqday isagoo qurux ka muuqato ya qurux soo cadcada yurub ka yimid qurux jubbad weyna shaalayna markaas iyo wanaagsanaya tego hadda wuxuu soo noqday isagoo raadiga geysa
والله أنا إنك نقول بقى وديتي نردينه بكرة ما أعرف أنا سأصحى شن بقول صحة شن بقول صحة هذا بتاعي أكيد مشكلتي ما حنكون كلنا هي بلدان حدان ماركتي بوجي بوجهم أشوف sababtuna waxaa weeye aniga waxaan ahaa jinna dabada iga jiray oo ma fariisan jirin oo waa buuq badan si la ii fariisiyo marka wuxuu helay buug weyn buu ka keenaya buug waliba buugbu ka weyn yahay waaba ka faa'iida badan marka wuxuu leeyahay buuggaas oo dhamay haddaad soo dhamaysid waxaa badan uma malaynayo buug jacayl inaan u bilaabay wax akhris markaa waxaan u bilaabay kubadda hel maaragtay shaatiga hel qado maaragtay maqaayada lagu geeyo iyo wax sidaas oo kale markii dambe waxaan ogaaday markaa buug ruush lagu qoray oo carabi lagu turjumay afrika ama buug ingiriisi lagu qoray oo aad ingiriisi ku akhrisay waxaad fahmaysaa magacyadii nina James baa la yidhaahdaa nina Orsof baa la yidhaahdaa nina Bulgakov baa la yidhaahdaa magacyo ajnabi alfaleyda kore ku tahay magacyo Soomaaliya ma ahayn maya waxaa idhaahday haddii oo runtii la fiiriyo dhalinyarada intii jecel wax inay akhrisato intii jecel wax inay qorto sideedii runtii oo sii fiiriyo waxaa waaye problemka ay ku jirtaa waa doubt self doubt waxbaa akhrisanay waxbaa qoraysa adig dhan ma hubtid waxaa qoraysid shaki baa kaaga jiro waa wax ha hada saas maa your intimate waaye you know wax aad soo qortay kusoo fikirtay oo kugu cusub ma ogid you're not ready حتى ما جرى platform أو كشيء كريسد أو to seek critique أما you know وحي وقفتي every writer needs critique you know constructive criticism أو بعدين ماشي ما في عم بسرعة مسمية input أو بعدين so role models كاس مهر السنة هذا كله if you are here perfect role model هذا you know مو إمانة you know مادام experience cases where am I heading anybody who's a great reader will hear that as soon as they put down a book they wish they could contact the author, email Udran, no. I love this book. Where was your thinking? What were you doing? So we like that on the Baftitia and Somali. My money. I should have to that couple. مثلا كان محا Somalia محل دمبي ورا كم دمبي حكم ورا كم دمبي وحكم الدولة الأنسية ما توقع. أرتكل ده قلت كذا كريادي staff review أنا قاعد أفتكر كوكري هذه وحاجة يرى دبعتها يكتشفتها معافكي أم كلماتي أرتكل في information كأخبار كتشفتها أفتكر كديو أد ونفسين واحد صار ما الله تحسيك دبعته كتشفتها دبعته وحوي هذه روحي عن رومايسنين إنه سماينك وأنا رومايسنتي أنا قاعد نشوف أنا ذاك أنا واحد شوجا سومالي يو قليل كان مدرس كمان توبيان habeenkii soo baxa maalnimo maarkiis ya maalnimo maarkiis habeenkii soo baxa maxay habeenkii soo baxaan waxa weeye Ethiopia markii aniga Ethiopia iskuul ka dhigtay moogta waxaa jirta wax la yiraahdo ishigada maalintaas oo ruuxii madaxii waa inuu gaabiyo leeyahay yes sir Soomaaliga gidigana gaalkacaynu ka noqdo marka ruux gaalkacay inuu gabaraya daayid gaalkacay inuu gabaraya waxba ma qarnay waxba idin kama waxaa loo baahan yahay annaga maalintiina waa nala arkaa maalintiina waa nala arkaa habeenkiina nalama waxaa loo baahan yahay annaga agoo opportunity baa jirta opportunity-ga haddaadan qaadan waa ku weyn I'll give you the opportunity haddii opportunity-ga aadan qaadan ruux kala qaadanay opportunity-ga adiga haddaadan qaadan ruux kala qaadanay haddaa isu qiyaastid marka
كو درس كنجا يا نجا حتى سقياس هذا كان مينيسوتا واحد شوبه لما سدح بروفيسور راح الصومالية وعدون كان كم موضوع سمعت لبعض السماتر هي قلاي سدح له ذو وجهه يتوس كون درس كان نجاح أو بروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم معكم نبض خليك النبض. نور الدين فارح آد بنو فرح سنة إن آد مناسبة دن آد قبني سان كسوق يبقلو. واحد بدن بان مقع مغلي موقع أنا ما أنت أيوه الرئيسة. هذيك سياسة مية. ما يعني. سؤال بنكويدين لها سؤال شكويدينه وحيد هاي سيدا عن تاريخ هذا مكان يرى أخرية أما أني لي أما بوجود هذا قرطي أم وحكي أجي كأجي ما كل وحن أوجه هذا يجري هذا يشوف الدورة وح بوجا أو صومال اللي هو قريه هالبوج بقرط سيدا نقدر يصدقوا تناتكي waxaan islahaa ninkaas bugaagta Ingiriiska wuxuu qoray waa nin Soomaaliga ka aradan oo Soomaali badan aan aqoon oo Ingiriisku isaga bayr sababtan cawda kii daraawiishtu ka hadli jirtay marka maxaa kalifay inaad kuwa aad qortay tan kale bugaagtaada qaybta aan akhriyay badanaa waxay ka hadlaan taariikhda Afrika ama siyaasadaha Afrika ama Soomaaliya waxay ay soo mareen xilliyadii ama miyiga laga guuriyo magaalada la tagay ama dadku isu bedelayeen حتى وربحنتي أتيسي سفر كي هراء أهلك كتبي MBR Soomaalidu inay miyi ka timid oo magaalada timid oo garanaysa culture shocks ama dhaqanka isbedelay oo dhibaatooyin badan u keenay siyaasad xumada iyo garanaysa nidaam xumada oo kalifay marka wali maan arag buug aad qortay inkastoo dadkeenu aanay iibsanayn oo aad xagga dhaqaalaha xaggeeda iyaduna howl tahay marka talada ugu jirta inaad buugaag Soomaali qoran soo saartid mana samays raalina iga noqon انت صورنا ما انت سؤال وحاوي هرت مكة سيدة بدن لي ويديو جوابتنا واي فضلها جوابت واي فضلها هاي dadka yaqaana wax akhriska afka af Soomaaliga ama afka ayuun baa wax akhrin kara buugii hadii la qoro marka hadii aniga Nuuridiina bal ka dhig maalin maalmaha kamida aniga Nuuridiina era abo ila maanta ka bilaabata af Soomaaliga ma qoraya ma akhrin lahayd adiga buuga runtii sheeg maya maxaad markii weydiinaysaa anaa waxaan ku weydiinayaa qoraayaasha levelkaagoo kale ah ee dunida ama raashiyaan ha noqdaan luuqado kale lagu turjumaa balse qoraalku waxay ka bilaabaan luuqadooda hay laakiin goormaan aniga Nuuridiina goormaan bilaaba wax qorin dhowr iyo toddobaatan kimiya dhowr iyo toddobaatan saan malayna lixdan iyo shantii baa bilaabay qorinay meelaha af Soomaali ma qorayn marka ma waxaad dhihi lahayd Nuuridiina waxaa lagu qaatay inaydan isdhibinba Soomaaliga ma qorayn markii dambe af Soomaaliga la qoray oo ku qoray buug af Soomaaliga Nobel Maxamed Siyaad Barraa wuxuu yiri Nuuridiin wuxuu qoray lama daabici karo oo Soomaaliga aniga magaceygana ma aan sheegi karin adiga magaca wala Cabdirasaaq haddii xamaraad markaa joogi lahayd oo article waraaq u qortid xiddigta October aad magaca Nuuridiin sheegtid laguma ogolaan magaca Nuuridiin inaad sheegtid marka
anigaan ku noolaa Soomaaliya marka ma waxaad dhihi lahayd Nuuridiin oo iska aamusno waxna ha qorin maya maxaad dhihi lahayd waxaan ku oran lahaa sheekooyinka iyo arrimaha iyo magaranaysaa qoraalada iyo bugaagta aadka u quruxda badan inay luuqadaadana ku soo baxaan baan jeclahay laakiin markaa mas-uuliyad ruux kale ay saaran tahay haddii la doonayo ruuxii inuu tarjumo buugagii la tarjumo waa wax kale anigii buugga intaan qormana tarjumi karo waqti uma hay maya waxa walaaladu sheegaya uu ka wada camal micnihii I think waagii hore iyo maanta way kala duwan tahay oo micnihii luqad within time people change within time we become more educated within time we want to learn we want to read whether ay Soomaali ay ku tahay whether ay ku tahay Ingiriiska iyo kuwii group micnihii back home joogay so adoo Somali writer it would be good to give that side a talk. It would be good to give the Somalis back home a book or something to read. It doesn't have to mean it has Somalida waxaan ku yiri ruuxii isbida inuu wanaagsan yahay oo buugaga mar hore la tarjumay buugii From a Crooked Road buugii hore oo dawladda mamnuucday in la qaado ruuxii raba hadda intaas waa markhaati ka ruuxii raba inuu af Soomaali ku tarjumo buugaga aan qoray ama article aan qoray fasax buu leeyahay waa furiin laakiin marna wali markaan meel ka hadlaba taasoo lagu qabsanaa waa moogtahay sala cala nabi haddii hadda qabsiga ka baxdo waa ku mahadsan tahay marka hore hadda waxaan saarnay dhanka laamiga xoogaa afka Soomaaliga dadka soo baxno bacaadkan u imaado waad ogtahay Nuuridiin annagu ilaahay baa nasoo badbaadiyay inaan soo taldegana laakiin dadkan kala khayr ku haysa waa ilaahay mahadin waa mahaddan waxaan arkaa dheefta iyo maaragtay dhalaal marka Soomaalidu waa taqaanaa waxay ku mahmaadaan ninka fiqiga dadkiisa batolkiisa kama jannato dadka Soomaaliyeed waa baabasiin waliba dad annaga nalamid ah waagaan soo qaxaynay iyo wali xero qaxootiga ku jira oo milyan kor u dhaafay dalkii waa burbursan yahay waana tagtaay annaga intaad socoto ma socono marka siyaasadda marka laga yimaado warkaan dadka Soomaaliyeed ama reer Minnesota ama meelaha kale Mareykanka ka degan ama hadda Yurub ha degan maxaa tangible oo ay ka tari karaan si dhibkaan ilaahay uga saaro waxyaalaha laga tari karo waxay ka mid ah waan ku bilaabay hadalkaygii Soomaaliga qoridiisa iyo idinka Soomaali ahaan contribution-ka aad u samayn kartaa annaga hadda waxaanu nahay bay ila tahay maybe inaan tiradayda inaan tiro xumayna igu dhaco waxaan ka soo qaadi lahaa 55 ruux inaan meesha ku fadhino 55ka haddii 20 annagoo ah aan waraaq u qorro madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa aan nidhaahno Soomaaligii wuxuu u baahan yahay in maaragtay institutionadii awal jiri jiray maogtaa waxaa awal jiray Somali Language Academy and Literature ayaa jiri jiray aanu soo noolayno yani meeshii idinkii waxaad ku leedihiin waxa weeye Soomaalinimada idinoo dhahayo idinka gidigii intagoo maaragtay ka qayb galo noloshiinii baana weli bislayn waxaan dhihi lahaa ka qayb qaata inaad Soomaalida aad hanuunisaan wax ku wanaagsanna ku hanuunisaan hormar hadduu jiro exam hadda dhalinyarada hadda soo socda education soo socda Soomaalida luqadii waa laga sii dayayaa aygan badaysanayaan luqadda wadanka ay joogaan Ingiriisi ay joogaan Australia ay joogaan halka ay joogaan marka ma laga yaabaa dadka luqadda baranayaan hadday wadanka la tagaan oo luqadooda ay ka tagaan inay horumar keenaan haddaan idin sheego aniga koorska haddaan bixinay jaamacadda duruus baan ka bixiyaa baryaanka course magaciisa waa graduate course
laba saddex PhD iyo kuwa masters iyo retired professors baa ka soo qayb gala maalin waliba course magaciisa waxaa weeye fiction written in second and third languages waxa weeye nin u dhashay Ireland ama af Ingiriisi ku hadlayay oo Faransiis ku qoran ama ruux u dhashay Ukraine oo ruush ku hadlayay markii hore oo haddana Faransiis wax ku qoran marka dadka wax qora badankood kuma dhalan afka ay wax ku qoraan afna ma aha cilmi afqalaad ma aqoon maxay ahayd aqoonta ma adiga waxaan kuu sheegayaa waxa weeye haddii waxaan ku yidhaahda wixii afkii aad ku akrinaysid ku fikiraysid ku seexantid ku soo toostid afkii aad ku shaqaysanaysid marka seebayo maasi fikrado wanaagsan oo la bulshadu wadaagi karo oo la yani xataa la xiisayn karo in la akhristo loo soo bandhigi karaayo how yani encouragement loogu soo bandhigaa meel la'aan way jirtaa oo hadda around any arday yiraahdo oo waxaan qoran writer noqdo ama journalist noqdo inuu qoyskiisa xataa dhiirigelinayo waa qoraal waa maxay warheede baro wax kale yani aadna ku gaadhin oo qoritaankayga uu noqonaya kamid yahay inaan aad u sii qiimeeyo oo wax sahlan u qaataa horta midda horeysa aniga ma dhahayo waana akhrisay alaabta Soomaalida laga qoray artikaladii jiraan middaanaydu waxaa weeye wax akhrimaade baasaboor Maraykan sida boqolkiiba 9 dadka dhalaalay wejigii dhalaalaya ku jirta moogta annagoo kale qahanka ma aha marka halkan ku noosha aniga waxaan iri markii hore haddana leeyahay halkan ku nooshahay halkan ka tagka kuma dhihin Soomaaliya wax ku darsada waxaan ku iri halka aad degan tahay ayaad ku jirtaa gabadha da'daada ah ninka da'daada ah aad iskuulka ahaydeen ama aad tihiin yuusan kaa fiicnaan ma faham sida iyaga ay u dadaalaan u dadaal la qabso ruux ku dhahaya masaajidka tegin ma jiro moogtahay ruux ku dhahaya sidaa iyo sidaa samey ma jiro Maraykan way furanta waa furanta opportunities baad leedahay halka ka qayb galo hadaayinta moogtahay waxaan idhi aniga af Soomaaliga wuxuu u baahan yahay dad wax yaqaan wuxuu u baahan yahay dad daneeya intaad danayn lahaydeen qabiilkanagii waxaa laga tegay wasaaradii waxba lama siinin iyo wax sidaas oo kale intii loo danayn lahaa waxaan idhi wasaaradda iyo tacliinta iyo intaad u qortaan waxaad tidhahdaa Somali Language Academy ha loo sameeyo wax kan ha loo sameeyo wax u taraya Soomaalidii kale agoo qabiil wax ma tarayo labadaa miduna lagugu yimaado ama ruux Soomaali oo Soomaalinimadii doonaya inay wanaagsanaato Soomaaliyadii ama ruux Maraykan ah oo ka qayb galaya Maraykan aniga midaan jeclahay waxa runta la isu sheegaya moogtahay midaan aniga jeclahay waxa weeye idinka inaad ka qayb gashaan dalkana ku nooshiin Soomaaliya kuma noqon kartaan ma noolaan kartaan anaa idin sheegay anaa 5 bilood ka hor baan ka imid anigoo la ii dadaalayo oo markaan airportka ka dago la leeyahay keen boorsada aan kuu qaadaya keen wax kan aan kuu sameeyay ayaa qaad idinka marka kuma noolaan kartaan agoo bacaad kuma noolaan kartaan kabihiina looguma talageli bacaad waa loogu talagalay halkaad ku nooshihiin maya halkaad ku nooshihiin waxaa laga yaabaa inaad fasax u tagtay halkaad ku nooshihiin halka ka qayb galo taasaan aniga weli wadaa تمام معنا ما سمعنا وقت في سماع هذا خطوة ها أيوة هذا تشان عروت هذا تشان يدينك يو أديك حاجة هذا وما ليني بدينكين
maraykan kursaday ruux u eg ma arkin ilaa waxaad u egtihiin maryooley marka haddii ay maryooley qabatihiin maogtahay soomaali waxa naga dhexeeya giddigan waa soomaaliga naga dhexeeya waxaan isu kaaya keenaya annaga agow soomaalida oo dhan giddigana soomaali ma wada nihiin maogtahay dad kale waxaa jira meelo kale ka yimi af soomaali ku hadlaan soomaali noqonaya doo waa laga helay soo gaab my data waa to the point haddaa waxaa ka hadashay Nuruddin inaad xiisaysid markaa yareed inaad ku bilowdo sheekada alf leel waleel oo af carabi ahayd haddana walaalka kaawin uu ku keenay buugga crime and punishment oo asna nin ruusha uu qoray iyo buugaag kale oo badan marka waxaa igu soo dhacday ma jira qoraa Soomaali ah waa buugtiisa xiisaysid waxaan jira nin waxaa jira maxamed daahir afrax la yidhaahdo oo Soomaali ku qoray maana faay maana faay waxaa jira nin Soomaali oo reer Djibouti oo la yidhaahdo Abdirahmaan Weber waxaa jira Soomaali kale oo gabayaagan aniga waa jeclahay akhris sheega qoraal baan sheegay akhriska Weber waxaa jirta gabar qortay buug la yidhaahdo Black Mamba Soomaali badan baa jirta wax qoran oo akhrisida ka heshid oo akhriya aniga haa badan karno Soomaalida badankood hal buu qorayaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa waxaa laga yaabaa dhibaatooyin kale inay iska jiraan afrikada kolay ku tahay waxyaalo badan dad badan ma qoraan maxaa jiraan su-aashaan rabay dhulka waabkaba waxay ka yartaabtay ma jiraan wax xidhiidh odadooda idanka soomaalida lagu qabta ama kuwa rafka hooyo ama afqaad ku qoran hadday jiraan xidhiidhka ha waxaan aniga mar hore madax ma ahayn laakiin aan Soomaaliga patron maxaa la yidhaha Soomaali band baan patron ururka halabuurayaasha qalimeedka Soomaaliyeed waxaan ahaa dadkii ninkii asaasay ama dadkii asaaslaan kamid ah dadkaasaan kamid ah mid uu sheegay aniga dhibaatadayda igu weyn waxa weeye waqtigaa igu yahay sababtoo ah safar badan baan ku jiraa sida badan wax badan baan qoraa wax qorintana ma qori kartid haddii aad dad la joogtid marka waxaa laga yaabaa anigoo Minneapolis joogo week inaan ruux bani aadan aan aan guriga joogo wax qoray marka mana aha ama dhibaatooyin kale inay jiraan sidaasaan u mashquulsanaa sanadkaygii saddexaad weeye halka 2010kii aniga masraxiyad baan sameeyey waa af ingiriisi halka lagu sameeyey Soomaali badan ma iman sanadkii 2011 masraxiyad baan sameeyey dad badan ma ahayn af ingiriisi ku qoraya masraxiyaduna ma aha masraxiyadihii Soomaalida oo ruuxii waxoogaa markii la joogaba intuu mid naagta intay soo boodda heesayso marka masraxiyad modern ah oo hadda aanu ku mashquulsannahay oo qaar dhalinyarada halka ay igu caawinayaan qaarkoodna ay ka qaybgeli doonaan Soomaaliya marka aniga waxay la tahay kollana adduunka hadda waxaa la joogaa qarnigii 21 qarniga 21 maadaama aanu joogno aanu ka qayb galno qarniga 21 taas ayaa aniga weydiin wax gabayo maanta ood Soomaali ku qortay oo nala wadaagi karto ma jirtaa gabay haye maayo samaanta gabay bariyaan ma qorin wuxuu doonaba ha noqdee maayo wax uun امتحان بعد
waxaan keliya arrintan saxo nabadiyo soo ku maasan tahay muuqashada aad nala wadaagaysa caawa Soomaaliya waddanka Soomaalidu qoraal kaliya ku yimid toddobaadnadii laakiin sayla مثلا حسوسنا هي أما أن أخرين كتماتك مصلحة أيوة كتبين ترين إلا يمكن وحي وجعلي ضد الصومال ضد مركز تجربين مصلحة أما رواية مسرحية عدونا برينا ضد مسرحية ضد صو حامرة حق مسرحية ضد صو ضد تعاملين واحد ثاني أيكنا نبض مجا الصومالي مجا ويكل مركز نقطة لو قفت لقيه خان الصومالي مو حجرين الرواية هنقول مجا وامين الرواية هو أما مسرحية ولا ما كنت رجعت مسرحية هنيمك نوع إذا تكون إنجليزي هي الصومالي هو إسجلت بلي معها وحسيري يستسير بالنور معها هدي أنا هنقول له سياسي marka aniga degree-gayga masters-ka markaan sameynayay waxaan ku sameeyay theatre masraxiyadahan ku qaatay marka waxaan jeclahay inaan sameeyo masraxiyado kuwan kan casriga ah haddii adiga aad interested ku tahay programyaa jira dibadda yaalla sii qaado haddii labada saddexda habeen oo la samayn doono masraxiyadaha بل سوق عليك حلقة يا با مسرحيتي في إنجليزي هذا اللي قرأي نفس ما اللي بترجمه يا ما تنسى قبل وما سنت هاي سيدي كان يتطلب شيئين سيدي هذا الوصول اللعبنا يو وحنا مش أول ما إنه وقنت هذا حاجة قرآن حاجة أنا الصومالي هلو الصومالي بتكون هذه ساعة الصومالي بتكون حيننا أنا يروح حاجة ثانية مع الدكتورية وصنقولة وأرضي بحبري قرآن كينجاد سير ألف ده أرضي وكتبي ألف من سير ورقوف كيجا راعي ور كيجا راع إلا pronunciation بيقول لي ألف ده حدي على ده هاي مدام أنا هاي صومالي ده هذا بدن ده شركة جعل ده وضع أفتحنا وحقورة هذه عالم قرينا في صوماليا. لما دور على ما بامش لا شيء حاول. نفكر ميت كمان هذين عن صحة. في صوماليا لما تكون في ودوا استان تكريه ما كم حكر بقية من ضد كسوق كتير. لما نبدأ مساكين أو سوق حوتي من ده كان تذكر نوحه قبل ما تصل عندنا. واحد سوق درجة درس الله ونرسم بري يعني سنة 80 marka waxaan rabaa kaliya inaan saxo dadkii ay qabtaan Soomaalidu waxay tiraahdaa laba bariga kala warla dadku waa wax barta dawladda shaqada busy marka magaalada aan degannahay gobolka degannahay waliba gaar ahaan Minneapolis Public Schools oo aniga laba sano hadda ka tirsanahay laba sano ugu dambeysay waxaan ka shaqeynayay in luqadda afka Soomaaliga lagu qoro high schoolada lagu dhigo ay ka mid noqoto subject lagu dhigo dugsiyada sare ee gobolka degannahay هذا ميت كميدا يا وحنا وصلت كشيء سبتمبر تلا صودا في سكول كنا بنلعب إن لقول لكم لغة الصومالي ومعلم وديكم كل كم كده أي يلاته واللغة دي يقول رئيسو أفريقيا الهيستوري أفريقيا تجيه كوبا كان لقول لكم دوسي كثيرة يعمليها بسبب سكولز. بالله قبل السوبر انتن بنوع واحد ربع قف أي إيمان ده وحنا نرى هذا الشنطة ما هذه هالي هذه هذا أفريقيا ما ده بمار مهمة وحيدة ونجاس أي الله جاي وين بدنا اليوم وخلاص ما أنت ده أنا وده جوله لحظة الشن أرضي أي صاير كيس ميزة أودي كذا 65 فما يكون الحواليان واحد بدلنا وين ده قديم يعني وبدل الواقع وحنا قبسنا كمان وأفكار الصومالي قال حيلة أنا وين قبسنا نقبلنا ويدي سواء كبحر